magaalada Hargeysa waxaa asqaran loogu sameeyay marxuum Maxamed Cabdi Aadan Iskeerse oo muddo dheer ka tirsanaa xisbiga maxaafadka ee Kulmiye. Aaska marxuumka waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland iyo mas'uuliyiin kale, waxaanay dhammaantood tacsi u direen ehelkii iyo qaraabadii uu marxuumku ka baxay. Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo waxa uu xabaasha dusheeda ka tacsiyadeeyay marxuumka. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Maxamed Cabdi Iskeerse waxaa insaan weyn dalkan iyo dadka ka baxay. ilaahay naxariis janno inuu ka waraabsheeyo ilaahay uga barinaa. ehelkii iyo qaraabadii iyo familku qasku ka garoodan ilaahay sabir iyo iimaan iyo ummadda Soomaaliland ka siiyo. Maxamed Cabdi Iskeerse Allahu naxariisto, ilaahay qabriga ha u nuuriyo. adoon fiican buu ahaa. waxaan u rajaynaynaa markaa maalin khayr lana u dhintay in ilaahay uga dhigo inuu jannada firdawsa geeyo. inay raajicuun waxaynu joognaa aaskii marxuum Maxamed Cabdi Aadan Iskeerso. wuxuu maanta u baahan yahay inaynu u ducayno, inaynu saamaxno oo la saamaxo, in la xusuusto oo wixii qarankan uu soo qabtay nin qaran buu ahaa, nin qabiil ma ahayn. wayna ilaahay raajicuun. waxaan joognaa aaskii marxuum Maxamed Cabdi Iskeerse. ilaahay ha u naxariisto caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo ehelkiisii iyo qarankaba samir iyo maanaha ka siiyo. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت كل نفس ذائقة الموت والله ضمنيا نبي محمد بعد دنتي إلهي سبحانه وتعالى إنه سمر إيمان إلهي نقصيه ذاتكيس إلهي كسيه صاحبين إلهي كسيه يسجن الشن الفردوس يعني إله وقبر الناس. إنا لله وإنا إليه راجعون. واحد شوفنا أسكي سياسي وينا أضيق وينا في Soomaaliland محمد عبد آدم إسكيرسه وها runtii nin dalkan iyo dadkan wax fara badan ku soo qabtay. Maxamed Iskeerse nin aad u furfuran buu ahaa. ilaa ilminteerigii baan isnaqay. wuxuu ahaa nin active ah, nin muxuu ahaa kaalmo dadka aad u xtar u ahaa, nin deeqsi u ahaa, nin muxuu ahaa dadka nacib yar yihiin buu ahaa. kolka loo eego waxa weeyaan intii aan qiin muxuu Kulmiye wuxuu ka soo bilaabay gurigiis. lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. maanta waxaynu joognaa aas qaran baynu joognaa. ilaahay naxariis jannaha ka waraabiye Maxamed Cabdi Iskeerse oo siyaasi weyn oo roog cadaay ah. ilaahay waxaan uga baryayaa marxuumka inuu ilaahay jannadii firdawsa ka waraabiyo. run ahaantii taariikhdiisu waa taariikh mug weyn oo aynu marxuumka insha Allah laga warrami doono. ehlu khayr buu ahaa. maanta waxaynu odhan karnaa oo ilaahayna uga baryaynaa inuu janno doontay maanta Maxamed Cabdi Iskeerse. ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun. inna allaha akhadha wa lahu ma akhadha. Maxamed Cabdi Aadan Allahu naxariiso subhanahu wa ta'ala. maalin barakaysan oo Ramadaan ah oo macshirka isugu soo baxeen. ilaahi waafajiyay inuu bukoodo oo dambigu ka soo maydmo oo maydmo ayaa horta mahad leh. waxaan leenahay daartii dhibta badan ilaahay ka kaxeeyay, daar ka khayr badan ilaahay subhanahu wa ta'ala ha kuugu bedelo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. geeri naxdin leh, geerida ku timi walaalkeen waa xaq. dhammaanteen waynu wada dhimanaynaa. adoomo ilaahay baynu nahay oo ku xukuman geeri. waynu kala horeynaynaa. kullu nafsin daa'iqatul mawt. ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto walaalkeen, innagana ha inooga daba naxariisto. ilaahay weyna ilaahay raaji'uun. waxa geeriyooday oday qaran maalin ka habboon oo geeriyooday lahaa qof islaami ma jirto. waa Ramadaan. ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo. inna ilayhi raaji'uun. kullu nafsin daa'iqatul mawt. waxaan halkan maanta uga tacsiinayaa adeerkay Maxamed Cabdi Aadan Iskeerso oo geeriyooday. runtii wuxuu ahaa shakhsi aad iyo aad, hadday tahay dhaqan iyo hadday tahay mas'uulinimo iyo hadday tahay dadnimo iyo hadday tahay islaamnimo, runtii aad iyo aad ugu wanaagsan. lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. ilaahay naxariis jannaha siiyo. wuxuu qof wanaagsan buu ahaa. nin aad iyo aad wanaagsan buu ahaa. qalbi wanaagsan buu ahaa. xalool wanaagsan buu ahaa. qaranka Soomaaliland iyo qoysku ka baxay Allah naxariistay Maxamed Cabdi Aadan Iskeerse oo ahaa tiirarka ugu adag ee siyaasadda Soomaaliland. Bedri Koosar Maxamuud, telefishinka caalamiga Star, Hargeysa.